midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa bayaan ay soo saareen ku cambaareeyay weerar ay sheegeen inay dowladda waqtigeedu dhammaaday ku qaaday musharaxiinta kuna hor istaagtay banaanbax dastuuri ah oo ka dhici lahaa 19 bishan fagaaraha taalada daljirka Dahsoon ee Muqdisho. Bayaanka musharaxiinta ayaa madaxweyne Farmaajo loogu tilmaamay inuu yahay dambiile qaran oo aan qayb ka noqon karin xaaladda dastuurka dalka. Waa sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay midowga musharaxiinta. Golaha midowga musharaxiinta madaxweyne waxay si xoogan u cambaareynayaan gaboodfalkii oo ay dowladda waqtigeedu dhammaaday si sharci darro ah ugu weerartay goob ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah midowga musharaxiinta, kuna hor istaagtay banaanbax nabadeed oo dastuuri ah oo la qaban lahaa Jimcihii shalay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta. Goluhu wuxuu eedda gaboodfalkaas sharci darrada ah dusha ka saarayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa dambi aad u fool xun in madaxweynuhu waqtigiisu dhammaaday isticmaalo ciidan isaga ka amar qaata in ay u muquuniyaan shacabka Soomaaliyeed uguna tagrifalo awoodda dalka, ayaa lagu yiri bayaanka midowga musharaxiinta. Waxaan shaki ku jirin in faldambiyeedkaas lagula xisaabtami doono madaxweyne Farmaajo iyo cid kasta oo ku gacan siisay iyo waxyeeleynta karaamada, sharafta iyo xurriyadda shakhsiga Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay midowga musharaxiinta Soomaaliya. Shalay ay ahayd kadib markii toddobaad ka hor ay midowga musharaxiinta ku dhawaaqeen in banaanbax nabadeed ay ku qabsanayaan fagaaraha taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho, inkastoo uusan banaanbaxaas qabsoomin kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay la wareegeen dhammaan amniga taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho oo loo qorsheeyay in banaanbaxaas uu ka qabsoomo. maanta waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay xurriyadooda dareemaan meel ay joogaanba, laakiin nasiib darro waxaad aragteena dhacay. qodobkaas mahadcelinta markaan ka soo gudbo, madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada, waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah, dastuuri ah, caafimaad ah, u wanaagsan dalka, qofkii doona madaxa ahaado, isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xur u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabada. waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen, ay ka shaqaynayeen, loo soo weeraray, naftooda halis loo geliyey, dadkoodii la dilay, la kala ceyriyey. mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan, dhaxalgal ah, dowladnimada u fiican, aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay. wuxuuna xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn. mid waa hanaanka dowladnimada, midna waa xurriyadda qofka oo aan labaduba laga tanaasuli karin. arrinta saddexaad waxa waaye mas-uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dowladda. ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan, argagixiyaan, joojiyaan, xurriyadda qaadaan, madaxda ay ka amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday. laba shay ayaa halkaa isku darsantay: madaxdii oo xilkeedu dhammaaday iyo falka la sameynayo aan sharci ahayn. labadaas waxay ku yihiin dowladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn. waxaan wada ognahay waqtiga iyo dadaalka naga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meeshii laga keenay. maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhallinyarada ahayn oo aan ku naaloonaynay inay qarannimada dhidibada u aasaan, inay dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan, doodna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca, inay soo weeraraan. waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno, ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci, wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo. hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha. halkaas in la fahmaa la rabaa. ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci, hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha. waxuu sameynaya waa faldambiyeed. qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaal. ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la keeni doona. shalay markaan dhisaynay si hagar la'aana, dadnimo ah ayaan u dhisnay, waa u hagar baxnay. maanta in loo adeegsado aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay.
waxay jebiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaaliyeed inay ka hanjabaan ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta aqligiina ku soo laabta sharciga annagu waxa aan dhisayno iyo waxaan u taaganahay waa dawladnimo haddaad u haysatin inaan dana gaar ah ka shaqaynayno dana gaar ah kama shaqaynayno danaheenna waa ka soo tagnay waxaan u taaganahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho oo galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay yaa ku guuleysanaya macna gaar ah nooma samaynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar u manhi inaan ka kaftano waxaan rabnaa inaan ku celinno banaanbaxeenu waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan ogolayn doorasho ee aan ogolayn banaanbax sida doorasho loola geli karo waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo loo siman yahay mana muuqata arrintaas xuquuqdaas asaasiga oo qof kastoo Soomaali uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hogaaminayna maanta ilaaha ku mahadsan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo xurriyaadka hala taageero maanta ay qabasho leedahay hadday halkaan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxa soo tignika keenay inuu dad ku dilo dadkaas oo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax ani waxaan aaminsanahay lama aamini karo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier warbaahinta caalamka ayaa 24 saacadood ee la soo dhaafay waxay aad u hadal haysay rabshadaha ka dhashay dibadbaxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho wargeyska afka dheer ee New York Times ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in dhibaatada ka dhalatay dibadbaxyadaasi kadib markii uu madaxweyne Farmaajo dib u dhigay doorashada isla markaana aanu ka tagin xafiiska wargeyska kale ee dimuqraadiyiintu leeyihiin afka dheer ee Washington Post ayaa sheegay in Soomaaliya ay gashay qalalaasad dastuuri ah tan iyo markii uu dhamaaday muddada xilhaynta madaxweyne Farmaajo wakaalada wararka ee Reuters ayaa qortay in dagaal uu ka dhacay markii xukuumaddu diiday dibadbax kadibna ay bandow gelisay dadka Associated Press waxay dhankeeda tabisay in qarax uu ka dhacay airport-ka waxa kale oo ay sheegtay in ay caburisay dibadbaxayaal mucaarad ah dawladdu mareegyada wax ka qoray sida Farmaajo ula dhaqmay mucaaradka waxa kamid ah BBC City News The Irish Times Citizen News The Hindu iyo qaar kale